ولا كلو كفايدة باجت بنتلان تضبيه تمانكي سنة وكما مشغول سنة إنه هرمك هذا كلية waayo maamulka kale baa jiray oo ka dhisan wadanka oo gooniintay waxoodii u sameysteen dantooda ku mashquulsanaa Soomaalina banaan ka maray laakiin Puntland laga soo bilaabo Cabdullaahi Yuusuf Allahu naxariistay maalintuu qabsaday wuxuu bilaabay gobolada inuu kuwa dhiban ku xoreeyo oo wax taro oo dhaqaale siiyo oo diyaarada lacag u raro kuwaas ma garan wuxuu taraayay Puntland abaalka ma helin وكسو قدبتي مدحوين عدا قبصدي من فدرال بالي هل بصو قال لو بخشي تي انبيغاتي بالعك فرد لو بخشي قلت لا وحي وهلنا دينay dawlad Soomaaliyeed oo soo noolayso iyaduna halkay rabtay ma gaarin ee odagii ku soo tabcay 2 sano intaan joogo waa tus casriyo isaga tagay markuu hayn waayay Dr. Abdulrahman Farooda ka dhameeyay hantidii iyo waqtigii Puntland intii bandeed waxa ku lumay garowto iyo garowan iyo gaalkacyo tiri iyo number wax noocaas ah baahandii wadanka lagu baxshay oo waqtiga lagu lumiyay waxa laga faa'iiday may waxa ka sii daraaba dawladii awal Puntland dawlad ku meel gaar ah wax la turtuuran jirtay markay ka abaal dhacdo iska dhicin jirtay midaan ku meel gaar ah baatimi oo baa leeyahay haysata dawladnimo oo warqadan laga daba saxiix karin oo kalma laga daba oran karin sharciyada haysata kama helin Puntland abaalkay ku lahayd Puntland marka waa laga wada faa'iiday Soomaalidu ma ka faa'iiday Soomaalina kullu ma amal gudub baan anagu leenahay laakiin waxay la tahay Soomaalina wada og tahay oo ciidu baa maanta hadii Allah idmo anigu waxaan ku talinayaa Puntland waa soo daashay 17 sanadood bay Soomaali raadinaysay Soomaali anagu waa ka tagaynaa hadda oran mayno laakiin Puntland waxaan ku talinayaa halkan madaxda fadhida iyo kuwa damacu ka hayo Puntland waxay u baahan tahay wixii hadda ka dambeeya in iyada dib loo dhiso oo baliyada laga fikiro anigu warkayga intaasan ku soo koobayaa sida gudoomiyuhu raftigiisu waxaanba ku dhuftay dad badan oo reer Puntland waxay qabaan in Puntland ka tashato Soomaali oo ayadu isku filaato Soomaalida dambana ayna waqti ku dhumin laakiinse waxaan leeyahay in badan oo cadawga Soomaaliyeed iyo cadawga Puntland ba sidaas ayay doonayaan haddii aynu weyno cid naga fahamta Puntland kaligeed baa Soomaaliya noqonaysa Puntland baa Soomaaliya noqonaysa